maxaa laydinka siiyaa niyo nimankan Arsenal iyo maalinta qura is yidhaahdaan headline-ka ciwaanada qabsada waabay ku haystaanba nimankii saakay qabsadeen 2 hours bay sugeen 2 hours ka bacdi headline-kii dhammaaba waaba leyloobo nimankan kalaaba qabsadayba niyo nimankan iska daaya niyo imika last 4-5 years waad haysataane السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقف فوتبول شو idinla soo dhawaada channelkayga haddaad ku cusub tahay fadlan subscribe si share iyo like labadaba raaci haddii channelka hore ugu xidhnaydna share iyo like labadaba insha Allah waan idinka rajaynaynaa waan fiicanahay waxaan rajaynayaa idinkuna fiican tihiin intaa ka bacdi maxaynu ka hadlaynaa hadalka qodob ee maanta aynu hadalkeena ku haynaa muxuu yahay waxaan jeclahay maanta reaction inaan ka bixiyo nimankii Tottenham oo looga taagi lahaa nimankii Arsenal ونمكم حيدين كنا في سنلاين no هيرلاين كم حد قدين لادين إنه مرقب صدان أرسنال با ويك في عم بيكون شرتيو فولهام بيصدق جول يبر وقبض سيارته دي لغفري يتنوع لما يسيشيس كي أبو بيان بيسجنا صدق سن الله الصحيح هذي والأرسنال هيرلاين كسفي عنه هاي ستوار ميدو يسكوس الحيين ayaa 2 saacadood ka bacdi nimankii Tottenham inta yaaceen ay Great Bill heshiis la soo galeen oo arrinkii soo dhameeyeen marka khamiistii hawshu isku dhamaatay ninka odayga waa soo socdaa marka reaction-keena waxa weeyaan maaha Tottenham oo Arsenal headline ka qaaday reaction-keena waxa weeyaan Mourinho iyo Bill mooda shaqayn doonaan Bill ma noqon doonaan nin ka duwan sidii Real Madrid because Real Madrid sidaan wuxuu u ciyaarsin waayay ciyaartiisu hoos u dhacday awgeed Tottenham ma geyn doonaa top 4ka su'aalaha la iswada weydiinaya waa su'aalaha marka Bale ciyaartiisa markaan dib u eegno Premier League markuu ka tagayay uu Real Madrid ku biiray 2 sanadood oo fiican uu aad u ciyaartayga aynu odhan karna saddexaad ee adduunka uu ahaa maadaama uu Neymar markaa joogin Barcelona ayuu ka tagay Ingiriiska 2 sano fiican buu haystay oo goolal badan u dhaliyay Tottenham si fiican u soo saaray Real Madridna markuu tagay waa kii aynu ogeyn xal ku gaarsiiyay marka Bale last 2 years maadaama uu hoos u dhac weyn ku yimid ma noqon karaa nin ciyaartiisii hore soo celinaya ama Mourinho qaab ciyaareedkiisu ma suud garayn doonaa Bale inuu ciyaartiisa soo saaro maadaama Mourinho wuxuu ciyaaraya counter attack tahay isagii Harry Kane mooda ciyaari karaan nam su'aalo badan ayaa meesha yaala jawaabahana waxaanu ka heli karnaa garoonka iyo Bale wuxuu ku soo kordhiyo laakiin waxaan qabaa Tottenham aamusnaanteedii wixii ay soo kordhinaysay markii hore stars make soo kordhinayna inuu Bale Ingiriiska wax ku soo kordhin karo inuu meel ula qabsaday oo hore uga soo ciyaaray tahay Tottenham kooxdiisii hore tahay si fiican uu ugu ciyaari karo hadduu dhaawac ka maqnaado marka waxaan qabaa Tottenham hadda bay soo adkaato oo leedahay Chelsea iyo Arsenal top 4 waan idinku haystaa maxaa haysan hadda bay soo salaanta Bale waa superstar aynu ognahay meel inuu gaarsiin karo kooxda marka Bale oo ku soo biiray Sergio Reguilon oo isagana la saxeexan doonaan 4 sanadood oo Real Madrid ay 30 milyan kala soo wareegeen marka tiimku imka strikerna way doonayeen inay ku soo kordhiyaan waa isku saxsan yihiin Tottenham bariyaan kameynaan hadaloo dameynaan islahayn meel bay wax gaarsiinayaan laakiin Tottenham waxaad moodaa hadda inay kor u soo yarkacayso Mourinho ciyaartoydu doonayo uu helayo waynu eegi doonaa haddii nimankaas intay isku xidhmaan deetana noqdaan niman wax soo kordhiya laakiin su'aasha kale meesha taala waxay tahay Bale ma ahaan doona ciyaartoy Tottenham ku sii jooga maadaama heshiiska ay ku jirto Real Madrid inuu mushaharkiisa bar ka bixiso ma noqon karaa nin ciyaartiisa intuu soo saaro Real Madridna ka furta heshiiskan amba mushaharkan ay bar bixinayso oo sanadkan intuu soo saaro sanadka dambe ay Real Madrid tiraahdo ninkii nagala wada wareeg waa ninkaas si fiican u ciyaaray amba kooxaha kale Ingiriisku soo dalbadaan markay arkaan sida uu ciyaaray waqtigaa sheegi doona laakiin waxaan qabaa Bale inuu awood u leeyahay inuu taas sameeyo waxaan aad ugu faraxsanahay mar qura inuu ninkii odayga uu ka fikray uu siri war hade daadu ma sii yaraanayso way sii weynaanaysaa uune lacagtana waxba tari mayse ordo ciyaar walaw wali uu lacagtii qaadanaya maadaama Real Madrid ogolaatay inay mushaharkiisa 50% bixiso 50% kalena ay Tottenham bixiso marka adoo lacagtiina helaya ciyaarna helaya maxaad doonaysaa Tottenham Manchester United baan islahaa iyadu way ku jirtaa tartanka laakiin Manchester United uma muuqato koox tartan ku jirta darinkii Tottenhamna uu dhamaadayba caafimaadku wuxuu ku mareen labadooduba khamiistii Madrid ciyaartoygu way wada maca salaameeyeen marka saako oo jimco subaxnimadkan
waxaa la rajeynaya inay kasoo degaan meesha heshiiska intii dambe iyo kontraankii ay saxeexaan labadooduba tottenhamna ay noqoto koox sidaa awood kusoo leh strikerna hadday kusoo darto deetana aynu eegi doonno bal meeshay kasoo baxdo marka maxaad u aragtaa inkastoonan islaynta tottenham taageerayaal badan bay leedahay oo arsenal un ku adkeeyaan daawade maxaad u aragtaa tottenham ma kula tahay koox sanadkan arsenal ka sarrayn doonto inay tahay ma kula tahay bale inuu top fourka gelin doonto mise waxay kula tahay bale iyo morino inay isku dhici doonaanoo siduu iminkaba morino ciyaartii koowaad markii laga badiyo tiimkiisa u caayiyey inuu bale britola u caayi doono deetana morino la eryi doono bale u noqon doona nin real madrid ku noqda sanadku markuu dhammaado waqtigaa sheegi doona aragtidaada nala waraag waxaad uga qabto amba aad ka qabto bale kusoo noqoshadiisa premier leaga dhaliisha iyo taladuba waa idiin furan tahay waaga football show idin leh is aragti dambe oo xiisa leh